السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa voice of oslo oo aad karaystaan mujada 99.3 oo siina waxigeeda halka caalamkiisa kana adnasta website-keena voiceofoslo.com. hayo wanaagsan ciyaartan dhegeysanaysa meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo ay noo maqsaanba habeenkan caawa ah ay noogu bilowdaan noogu baad farxad masha diyaaleedno gudaha iyo caalamkana hambaliysan ayaan hawada idin soo marnayna kula soo dhawaada barnaamijka arrimaha bulshada ee caawa laanta afka Soomaaliga cadda voice of oslo aniga Cabdi Maxamed Aadan midnimo ayaa idin socodsiinaya. waxaan riyaadeena laba arrimood oo aan leenahay runtii bulshada degan waddanka Norway inay muhiim u tahay iyo waliba dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gudahooda. waxaan ka hadlaynaa haddii aan idmo 13 May oo waddanka Norway qiimaha ugu fadhiyo ayaan ka hadlaynaa marka hore. waxaan marka dambe ka hadli doonaa insha Allah 15 May maalinta Israel dhalinyaradaasi iyagu u kacay in dalkooda ay markaasi ay ka saaraan gumeystigaasi dalka joogay. qadka taraafika waxaa ku jira aqoonyahan maxamed bashiir horfos ee ku soo idaacadda voice of oslo habeenkan caawa ah. aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan cabdi fataax midnimo iyo baxda voice of oslo aad baan idin salaamaya waana dhowahay. mahadsanid. waxaan rabay inaan ku weydiiyo 17 May dalka Norway oo muddo 206 sano lasoo xusayay oo marxalado kala duwan soo martay bal marka hore bal waxaa ka hashaa qaabka uu ahaa iyo weliba siyaabihii kala duwanaa ee xafladaha kala duwan loo qaban jiray dalka Norway intii aad joogtay iyo intii ka horeysayba iyo maanta oo marxalad kale loo dabaaldegayaba. 17 May waa maalin aad iyo aad ugu muhiim ah taariikhda Norway khaasatan taariikhda casriga ah ee cusub ee la yiraahdo marka laga soo qaado 200 oo sano. waa maalin taariikhi ah oo ay ku magacaabaan maalinta maaragtay national dagen laakiin xagga sharciga iyo dastuurka waxa loo yaqaan grundlovs dagen ama maalintii qaanuunka dibadda loo dhisay. asaas ahaan waxay ka timi 1814 lagu khasbay Denmark oo ay qayb ka ahaayeen dagaal ay la galeen Ingiriiska iyo Norwayba oo Norway taxaal Faransiiska la samaysay dagaalkii loo oran jiray Copenhagen goobtii loo oran jiray taasoo runtii dagaalkaas ka bacdi ay dhacday gaajo aad u weyn oo dhacday 1812 Denmarkna ka dhigtay dagaalka inay maaragtay ay ku khasirto 1814kiina waxyaalo cadaadis ah baa fuulay oo ah inay ka tanaasulaan Norway iyagoo mucaahado loo oran jiray Kiel ay u tanaasulaan boqorka Norway ay ugu tanaasulaan boqorka Sweden goboladii kale oo Iceland iyo Greenland iyo jasiiradaha maaragtay Faroe ay sii joogaan maaragtay ay ku sii jiraan Denmark. marka maalintaas haddii aan sii wato waxay maalin 16 May ayaa magaalada Eidsvoll waxa ku fulmay 120 qof oo ka kala socdaybaha bulshada Norway oo dhan ganacsato haday noqoto rag kale oo maaragtay aqoon-yahano adigu dad qaybaha bulshada oo dhan ah maalinkii 17kiina Grundlovka iyo sharcigaas ayay gaareen waxayna 17ka naftigeeda ay boqor u doorteen jiray amiir la oran jiray Christian Frederick oo Danish asalkiisu ahaa ayaa loo doortay inuu boqor Norway ka noqdo. ilaa maalinta iyo maanta aynu joognona 204 sano inta taariikhda lagu hayo laba jeer ayaa la yiraahdaa ayaan la dabaaldegin. mar waxay ahayd dagaalkii adduunka magaranaysa xilligu dhacay mar kale tona runtii aad uma xusuusto laakiin laba jeer ama saddex jeer ayaa taariikhda la yiraahdaa lama dabaaldegin. dabcan waa maalin aad u weyn qiimo leh dadku qiimeeyo lagu faraxsan yahay habka loo dabaaldegana uu yahay hab aad u sareeya oo aad maaragtay loo qiimeeyo habka maaragtay baana tooga la yiraahdo ayaa loogu dabaaldegaa. caruurta ayaana lagu sharfaayo maaragtay socodka iska leh baabuur yar oo booliisku leedahay horgasha baamboyda horgasha caruuraha taga marka u dambeeyna waxaa lagu soo afjaraa meel ah goob maaragtay lagu qabto xafladaha oo kale oo furan oo marka dad muhiima ay maaragtay markaas ka jeediyaan erayo khaasatan gudoomiyaha degmada marka haysta ama forarka la yiraahdo
ayaa ka jeediya arrintaas iyo cid markaas lagu tuhmayo inay maaragtay taariikhda iyo wax ka og yihiin iyo wixii lasoo maray marka sanadkani haddii aan taabto intaana sanadka u gelin maalintaas waxay ku can tahay hab aada u fiican oo loo farxo heer qaran ah cid walba soo baxdaa banaanada loo soo baxdaa waa laysu hambalyeeyaa waxa carruurtu ay cunaan iis aada u badan way ku faanaan oo inta uu cunay ilmo walbaaba bulsaha iyo iiska way tiirsadaan 20 lagama celiyo activiteed yar baa iskoolada iyo lagu sameeyaa markaa kabacdi marka laga soo noqdo xafladaas waxa kaleeto oo maalinka ay aad yani booqasho faamiliyada iyo dadka qaraabada iyo asxaabta iyo maaragtay meel ku wada qadeeyaan marka waa hal sistema dadku isku wada dhar ah qurxoon calamo lulaya socod ku soconaya baabuurta la baarkin gareeyay jidku furan yahay dadku isu naxariisanayaan isjecel yihiin qofka ka hor yimaada farxad wajigiisa ay ka muuqato ama aqoono ama yuu ku aqoonon maalin markaa waxa weeye aad iyo aad u qiimo badan criminalku aanay dhicin oo ay yar yihiin dagaaladu aanay dhicin rabshaduhu yar yihiin laga xishoodo in wax xumaana la muujiyo waa gartay waxaa ku weydiin rabay marxaladan hadda waddankan uu ku jiro dadku inta badan waxa ay sheegaan in dadka waddankan iska leh norwejiga ah inay yihiin dad wadaniyiin ah oo dalkooda jecel taas ma ka muuqataa oo ma ka aragta adiga markii loo eego 17 May dad badan waxay ku andacoonayaan oo ay sheegayaan in dal jecelka iyo dhismaha dalka iyo qiimaha uu leeyahay in qof walba uu asaga mas'uul ka yahay in dhinaciisa uu macna maxay u ka ilaasho nabadda waddanka Norway sidiisaba laba wax bay ku dhisan yihiin oo asaas u ah dadku waxa ay bixiyaan cashuur dawladuna service iyo adeeg bay u samaysaa dadku waxa ay dhiibaan warbixintooda dhabta ah oo been kama sheegaan kalsooni ayaana lagu muujiyaa oo nidaam la isku kalsoon yahay ayaa lagu wada nool yahay oo dastuur ku nool yahay ma aha nidaam la iscaburiyo nidaam la iscadaadiyo nidaam dimuqraadi ah oo aad ilaa iyo aad u xor ah ayuu nidaamkooda ku dhisan yahay dadku markaas taariikhdan iyo sida yihiin iyo waa maalin ay aad u jecel yihiin dadka norwejigana waxaan ku oran karaa waa dadka waddankooda iyo wixii waddankooda aad ugu jecel waxay ku faanaan qofku sheegtaa inuu yahay tibiski noosh yani nooshke ma garanaysaa asala oo quxa waxay aaminsan yihiin shukulaatada norwejigu iyadoo aan shukulaadooyinka ka macaanayn laakiin dhaqanka waddanka inay best tahay shukulaadada adduunka tan ugu fiican ayay aaminsan yihiin waxay ku faanaan wax kasta oo cuntadooda ah dhaqankooda ah baadiyahooda xadaaradooda kaymaha dhulkooda wuxuu u badan yahay dhul aan ahayn modern u dhisnayn oo maaragtay waxay aad u jecel yihiin guriga duurka ku yaala hitaa la yidhaahdo kaynta xeebahooda fasaxyada waxay jecel yihiin inay ku qaataan waddanka gudihiisa maalintaa laakiin iyadu way ka duwan tahay waxaad moodaa dadku inay isku mid yihiin waayo dharku waa isku mid wax yaroo faraqun baa u dhexeeya dharka waa la kala dhaxlaa ama waxaa la isku gadaa hadiyad aad u weyn farxad weyn bay muujiyaan way soo wada baxaan qof aan soo bixinin ma jiro duruuf qof ay reebto iyo dee hal qof oo iyo laba yar way iska jiri karaan waddan weeye caadi oo dee qof khayrul waddana ama camiila way leeyihin oo dad loo xukumay way jiraan taariikhda oo loo qabtay jaajuusnimo laakiin haddana waa mujtamac dalkooda aad u jecel oo maalintaas safaarada dibadda lagu qabtaa meel kastoo ay joogaan baa lagu qabtaa meeshii laba iyaga ka mid ay joogaan ayaa lagu qabtaa bal iska daa dhaqankaas ajaanibta jooga ayaa ka qayb qaadata oo maalintaas ka qayb qaadata dadka ajaanibta ah u dhashay waddanka aan u dhalan laakiin jinsiyadda qaatay ayaa dareemay oo maalintaa jecel masalan soomaalidan oo kale maanta walow aanay teemada ahayn aad bay u dabaaldegeen ugu farxeen uga qayb qaateen waxaana ku tusaya farxaddooda meel walba calankii oo taagan meel walba calankii oo suran baabuurtii uu suraya maanta waxaan arkay guri hortiisa calanka sida ubaxa loogu biiray iskoolada carruuraha kuwa aanay tegin waxaa la yidhi soo sameeya calankii baa loo soo diray alaabadii bay soo qaateen carruurtu maaragtay waraaqo buluuga iyo kuwa casaana iyo ama caddaan wixii calanku u ekaa midabkiisii dabeedna way sameeyeen oo netkay geliyeen marka ilaa xadkaas ayay aad u tahay maalin qiimo weyn oo waddaniyad ay muujiyaan ayna jecel yihiin waana maalinta qura oo Norway dabaaldeg loo dhan yahay oo aan loo kala harin laga sameeyo aan kugu dara maharajaanada la kala mara socodka lagu mara guriga boqorka iskuulaad fara badan baa ka qayb gala oo weliba waxaa ugu horeeya iskuulaadka 100 sano buuxiya ayaa sanad walba wuxuu u leeyahay in uu noqdo iskuulka ugu horeeya markaasi 100 sano buuxiya
iskuul shamsa sallahi ayaa sanadkii hore 100 sano buuxiyey iskuulaadka oo sidaas oo kale tigina 100 sano buuxiya sanadka qaybgeli lahaa laakiin waxay noqotay in la kala baahdo markaasi sababaha coronavirus awgeed waxaa ku weydiina marka dhinaca dowladda haddii ay ra-iisul wasaaraha ma hadashay maanta oo hadal khudbad ujeedisay boqorka ma hadlay bal noo soo koob haddii ereye ay sheegeen bal dhinaca dadka kala socotay runtii ma aan dhegaysan xaqiiqada laakiin boqorku maanta waxaan ogaa inuu balakoonka soo istaagaya kowdii duhurnimo oo maaragtay halkaa dadka uu gacanta uga taagayey awal ballantu ma ahayn maadaama coronavirus uu soo galay ra-iisul wasaaruhu dabcan way hadlaysaa oo khudbad sanadla ah bay leedahay maanta laakiin coronavirus wuxuu galay marxaladtii hore ka duwan dadkuna xaaladda norway ku jirto guud ahaan waxaa la yidhahdaa dagaalkii labaad ee adduunka ka bacdi iyo xilligii maaragtay colaada bay yidhaahdaan intii nabadda la haystay iyagu waxay ka soo qaadaan 75 sano u dameeyey ilaa 45 waxay yidhaahdaan ma soo marin marxaladan oo kale marka coronavirus wuxuu joojiyey wax kasta oo waddanka habkii loo dabaaldegi jiray habdhaqankii dhaqaalihii markaa 16 mayna waxa uu ku sameeyey raad aad iyo aad iyo aad iyo aad u weyn ayuu ku sameeyey raadkaas oo ah inuu wax walba maaragtay uu kala xiray kala daadiyey noloshii uu geliyey maaragtay mid aad u culus oo dadkiina ay maaragtayba ya allah ya kariim oo kaleeto la taagan yahay marka haddana ay sidaa tahay dadku waxa weeye waxay muujiyeen intii itaalkooda ahayd karaankooda ahayd dareenkoodu qabay muujiyeen waana wax yani ay dareemayaan inay waajib ku tahay dadka waddanka oo dhan in ay sameeyaan waa gartay waxyaalaha ugu waaweyn ee laga baran karo in loo dabaaldego 17 May nooshaha dhan ay wada sameyn yihiin waxa laga baran kara maxaa kamid ah waxaa laga baran karaa oo ugu weyn waxa weeye midnimo waxa ugu badan maaragtay isku xiraan waxa ugu badan isjacayl waxa ugu badan habka loo dabaaldegayo oo hab aan maaragtay miisaaniyadda dowladda iyo shacabka iyo cidna aan dhaqaale dheeri ah maaragtay gelinayn oo cid khasaarinayn ama khasnada dowladda wax ka khasirayn oo qof walbaaba uu maaragtay ku soo gelayo maaragtay si caadi ah isagoo dharkiisii wata shacaba calankiisa ruuxaya halkaa uu ka baxanayo marka waxay ku tusaysaa midnimo guud iyo jacayl iyo sida ay ugu faraxsan yihiin ujeedkuna farxaddani wax kale maaha waxa weeye waa xorriyadda waa dimuqraadiyadda waa sharcigan ay haystaan waa habkay u nool yihiin waa sharcigan oo siinaya maaragtay shaqo siiyey hantidoodii maaragtay u maaraynaya si fiican dadka oo dooranaya maaragtay dadkooda oo ilaa maalintaas iyagunbaa isdooranayay oo awood boqortooyo oo culusi ma jirto maanta waddanka boqorku waxa weeye sharaf buu u yahay dadku waxay ku nool yihiin nidaam aan maaragtay boolis caburinayn cid aan maaragtay dagaal lagu samaynayn qofka xanuunsada oo maaragtay u xorri inuu helo lacagtiisii kan aan shaqayn oo la gargaaro hadday dibad joogaan oo ku dhibaatoodaan oo xaaladi ku dhacdo ay la xiriiraan safaaradahooda dowladda iyo nidaamka oo ah nidaam bulshada siiya macluumaad iyo tallaabo kasta oo ay qaadayaan ay nolosha ka qaadayaan marka waxyaalahaas oo dhan oo ay ku faraxsan yihiin baa waxay keenayaan dadku inay ku farxaan ku faanaan ayna jeclaadaan waa gartay waa runtii waa anaga balaynaynaa dadka norwejiga ah maalinta qiimaha ugu fadhida 17 May waxaan leenahay gratulame laakiin waxaan aadaynaa marka 15 May oo ah maalinta dhalinyarada SYL iyadu bal qaabka loo xusi jiray iyo maanta marxaladda la marayo bal iyadan wax ka dhibal 15 May horta waxaa dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa waxay aasaastay SYL ururkii la oran jiray oo markii hore la oran jiray SYC oo Somali Youth Club la oran jiray waana 43 xilliga la aasaasay muddo hadda laga joogo 77 sanadood waxaa aasaasay dhalinyaro Soomaaliyeed oo markaas xilli Ingiriisku waddanka ku hayay nidaam ma garanaysaa ay ku meel gaar ah ayay waxay dareemeen baahida loo qabo yani urur ay leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed aasaaskii hore marka aasaaska dhalinyaradaasi waxay ka dalbadeen Ingiriiska ayay u qorteen warqad waxayna ka dalbadeen saddex waxaa ka mid ahaa inay furtaan kulankoodii saddexaad naadi la yidhaahdo Somali Youth Club oo naadi caadi ah inay helaan guri ay ma garanaysaa ay ku maaragtay shaqaystaan iyo barnaamijkooda iyo qorshahooda dhalinyaro ay isugu yimaadaan runtii waxaa la yidhahdaa jawaab culus ayay Ingiriiska kala kulmeen oo wuxuu yidhi waxaad tihiin dad beelo kala yimi oo qabaa'il ah
waadna iscunaysaan naadina kuma heshiin karaysaan marka dhalinyaradu arrintaas way ka soo tageen iyagoo ka xun laakiin waxay yidhahdeen hadda ayaanu waxaanu baranaynaa inaanu heshiin karro inaanu wax noqon karro inaana maaragtay aanan ahayn waraabayaal iscunayo xoola loo dhibtay sida ayay ku samaysteen rag dhalinyaro ah oo soomaaliyeed oo ka mid ahaa cabdulqaadir sakhaawudiin iyo yaasiin xaaji cismaan ayaa loo doortay markii hore yaasiin xaaji cismaan ayaa guddoomiyaha loo doortay sida ayayna ku bilaabeen dhalinyaradu barnaamijkoodii markii dambena waxay u bedeleen halgan iyo xornimo doon dabcan dhalinyaro markii hore waxay ahaayeen ka yimid gobollada galguduud mudug banaadir gedo iyo gobolka shabeellada hoose dhalinyaro soomaaliyeed oo waxay ahaayeen aaminsan fikir wadaniyadeed xornimadeed waana aasaaska qayb ka mid a halganka waayo halgankani wuu soo jiray oo daraawiish baa dagaalamaysay dad soomaaliyeed horaa dagaalamayay laakiin dhalinyaradana waxay dhiseen nidaam midaysan oo qoraal leh oo ay dastuur leeyihiin oo ay naadi markii hore ka dhigteen markii dambe laakiin u bedeleen xisbi siyaasi ah oo soomaaliyeed ahna kuwii u horseeday dowladda soomaaliyeed ama xubin dowlad soomaaliyeed oo xor ah xornimada la qaato lixdankii daakhiligiina ahayd kontonkiina ay sabab u ahaayeen marka dabaaldegoodu wuxuu ahaa kow mid ummadda soomaaliyeed u wada dabaaldegto maalinta 15 May taala loo sameeyey maalin la xusubay ahayd maalin iskoolka lagu dhigto taariikhda lagu dhigto la xuso ummadana qiimo ugu fadhiday oo khaasatan maadaama ummadda soomaaliyeed u badan tahay dhalinyaro mar walba lagu dhiiri gelinayay dhalinyarada lalaha waa kuwa wiilal idinla mid ah sidaa wax u sameeyey uu mar walba ninka dhalinyarada ah ee soomaaliyeed uu spirit hayay oo maaragtay uu moraal hayay inuu wax dhisi karo waxna qabsan karo waddankiisana horumarin karo waa gartay dad fara badan oo markaasi halganka qayb ka ahaa ama gobjoog soo ahaa ayaa dhawaan geeriyo sida cali boolay oo kaleete marka ma isleedahay taariikhda 15 May dadku ay xusi jireen in hadda maxay dadku ay ilaaween qolada adigu SYL qura lama ilaawine waxa la ilaaway dhaqankii waxa la waalay taariikhdii hore maadaama uu waddanku galay burbur galay dagaal sokeeye galay dadkii oo maaragtay kala yaacay galay dadkii oo qurbe kala galay wadamo kala galay diintii oo isbedel ku yimi lagu kala tegay waxyaalahaas oo dhammi waxay keeneen in dadkii Soomaaliyeed taariikhdoodii madmadow ka galo manahijkii iskoolada iyo waxbarashadu maanta waxa weeye mid waa Kenya mid waa Gadari mid waa Imaaraat mid waa Masar midba meel buu ka yimi luqadii baa waxay ku jirtaa ciriiri gabaabsi marka dadku ciddii ku baraarujin lahayd waxa laga yaabaa maanta inuu Soomaaliya ku yaal iskool aan lagaba dhigan SYL oo maaragtay cidiba ka aqoon SYL waxay ahaayeen iyo cidda ay ahaayeen iyo waxay ahaayeen marka taariikhdii waddanka oo dhan ayaa waxay ku jirtaa khatar iyo halis ay sidaa tahay haddana mar walba dowladda waddanka ka jirtay intii u dambaysay dowladda la asaasay waa loo dabaaldegayey waa la weyneynayey shalay hab kuwii ka hore duwan ayaa loo dabaaldegay oo madaxweyne farmaajo si aad u wanaagsan ilaahay khayr siiyo ayuu ugu dabaaldegay sawiradoodii ayaa la soo dhigay meel goob ah oo uu soo dhex istaagay maadaama coronavirus uu jiro dabcan taaladoodiina waa la tegey waa la xusay waxaadna moodaa mar walba in la soo kabanayo oo dee dadku markuu waddanku soo noqdo ayaa taariikhduna lagu baraarugayaa oo manhajku inuu midoobaa horta muhiima oo la qoro taariikhdeena iyo halyeeyadeena ayad waxaan arkaynay baraha bulshada buug la wareejinayay oo ku saabsanaa ka hadlayay taariikh khaldan oo la sheegay in sayidku uu waalnaa oo kaleete in taariikhdii halgankii SYL oo ahaa dad maxay qabiil isku aruursadeen halka xawataaka ay buugga ku aflagaadeen oo ay dhaheen nin Talyaani baa qabay taariikhi fara badan oo waxaa jiraan oo waagii hore been laga sheegay dad aqoon-yahano Soomaaliyeed baa buuggaasi turjumay oo qoray marka dadkaasi maxaad oran lahayd adiga kollay qoraalkaasi Facebookga meel baa ayaa loo ordayaba runtii ma arag qoraalka laakiin laba tusaale ayaan adiga iyo ummadda Soomaaliyeed idin siinaya oo aan idaacad ahaan idin sheegaya ummadda Soomaaliyeedna u gudbinaya haddii wax lagu qaato waxaan rajaynayaa inay cashar fiican yihiin صح mar walba dad walba horta waxaa ku jira dad taariikhda ka been sheega dhibaato sheega been sheega
wax isdaba mariya bani aadamkuna sidiisaba yani wuxuu leeyahay dad maaragtay aad wax u buunbuumiya xumaanta raadiya dhibaatada raadiya wax isku dira dadka isnabcaysiiya wax cusubna ma aha dabcan suugaan baan anigu wax ku cabiraa oo marka hore arrintaa dadka aa sheegayso iyo kuwa wax samaynaya suugaan maanse aan qoray 17 bisha oo bartayda Facebook aan soo dhigay ayaan waxaan ka akhriyay nin baa wuxuu soo qoray webiyadu horay bay u socdaan gadaal uma socdaan meel af carabiya baan akhriyay marka wuxuu ku lahaa dadka badahooda ka baxo horay u soco anigu marka webigii baan qaatay ka qorbaan isla suugaan laakiin waxay la gashay sheekadii dadka xumaanta ka shaqeeyana waan soo geliyay marka sid orada baan ku akhriyayaa arrinta kalena waan u soo noqonayaa waxaan idhi webiyadu gadaal abid biyaa uma gonaane horay bay gurguurtaan gallad iyo barwaaqiyo geedaa ku soo baxa ayaa lagu gargaartaa marna daad gadoodo noolaha gilgilo iyo gayugoo halaagniyo geerayba sababan dadkuna waa gadaadayse kuwa horay guclayiyo khayrgooba weligood aadmigana gargaaro guusha iyo faraxuna goddahooda yeemid kuwana waa ku gubo iyo guutada islaysko noloshoo go'doomiyo xumaantay u guulaan marka kuwa taariikhda sayidka iyo xaawasaako iyo SYL madowga gelinaya waa kooxdaa dambe oo aan ku leeyahay kuwana waa ku gubo iyo guutada iblaysko noolaha go'doomiyo xumaantay u guulaan intaas horta waa mid tan labaad nabiyullaahi muuse calayhi salaam ilaahay buu dhiiri ilaahayow dadka hadalkooda iyo inay wax iga sheegaan iga awd oo maaragtay iga dabool in dad wax iga sheego ma faham ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala caza wajalla aniga oo ilaahay taa isuma samayn buu yidhi waan irsaaqaa waan abuuray ilaahay bay dadku wax ka sheegaan ma fahamtay marka dadku ambiyadii siday ula dhaqmeen siday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loola dhaqmay sidii nebi ibraahim loola dhaqmay haddaad fiiriso nebi saalax sidii loola dhaqmay nebi luud sidii loola dhaqmay nuux sidii loola dhaqmay saalix halkaa soo dhigay geela oo yidhi maalinna ka caba waad ogeyd nebi muuse ma garanaysaa tii u layma waad ogtahay marka dadku mar walba waxaa jira kuwa marin habaabin iyo taariikhdoo la xumeeyo iyo wax walbo la xumeeyo laakiin sayid maxamed iyo cid walbo halgalaa soomaaliyeed waxa markhaanti u ah halgankooda oo ka jawaaba mar walba horta xaqu ma qarsoomo sayidku markii uu dhintay xornimada la qaatay noloshii waddanku ay maaragtay isa soo dirtay waxa laga tiriyey suugaan badan dad badan baa ka hadlay oo maaragtay faalleeyey nin la oran jiray qaasim diiriye abuan qaasim la oran jiray ayaa markii uu arkay sayidka xornimada la qaatay ayuu gabay aad u dheer tiriyey qaasim baa la oran jiray waxaa la oran jiray axmed ismaaciil diiriye marka wuxuu ka mid ahaa gabaygiisii allow yaa darwiishkii salaan darebcsan gaarsiiya allow yaa dabaaldegiyo faraxa kala duleedaama fardaha yaa dirkii doodimeer doona faraxooda allow yaa darmaan fara taqaan duqa u kooreeya allow yaa duleelada daleex uga damaashaada daaxuu ku daagriday xaqoo naga dahsoonaaye ha daawado dadkou hiliyo doogga soo baxaye allow yaa dalluuntiyo khabriga dib uga soo saara in dariiqadii nooshahay oy dunida soo gaartay oo dabkuu shiday rag kale dodob ku sii gaaday allow yaa af lama daaliye daacad ugu sheega waa gabyaa soomaaliyeed oo markii xornimada la qaatay ayuu wuxuu xusuustay sayidkii markaasuu wuxuu jeclaystay sayid maxamed oo soo baxa oo arka dabaaldega taasaa kaaga filan sayid maxamed cabdulla xasan cidda uu ahaa ingiriiskuna qofka soomaaliyeed ingiriis baa ugu badnaa dad aynu dirro iyo talyaanigu waxaad moodaa inaanu run ka sheegin sidii loola dagaalamay laakiin hangalka soomaali gashay biyamaal baa dagaal culus galay waxa galay nin dad badan oo reer koonfureed oo xaawataako iyo dhagaxtuur iyo ka mid yihiin sheekh bashiir baa jiray sheekh xasan bartaar jiray maktal daahir baa jiray
محمود حربي باجري سيد محمد باجري حالنا جري مقر صومو تاريخ هل ييغو مقر صومان قف وحقري او ميل اوردي براها بلشده الهي قرانكو كليهي اموديننا كوي u dhintay ilaahay dartiis ee shahiidka ah inay dhinteen laakiin way nool yihiin sayid maxamed waxa kaaga filan taariikhdiisa maanta qof walba oo Soomaali inuu magaciisa yaqaan xalane qof walba inuu magaciisa yaqaan SYL qof walba inuu marka qorraxda ninkii doonaya inuu saacabada saaro waxaanu leenahay ma saari karaysid waxa la yiraahdaa daahiri ashams buu oran jiray in la yiraahdo cabdigood hadiyan waxa ku jira marka taariikhda ka sheekeysay iyo taada aan ku sheegay ba intaba marka loo eego dhinaca Soomaaliya wadanka loo eego maadaama wadanka marxalad cusub marxalad kale uu ku jiro dad badan ay qurbaha joogaan qaar baa jiray in wadanka loo in arkaan rabay in arkaan laakiin geeriyooday ama siyaalo kale u xanuunsan baad xilligan marka soo dub maxaa laga baran karaa maxay 15 May maalintaasi qiimaha leh marka loo eego dalka Soomaaliya 15 May waxa laga baran karaa laba wax baa laga baran karaa midi waxa weeye horta nin gabayaayo carbeed oo la oran jiray al-Qasim al-Shaabi baa la oran jiray baa gabay waxa jiray la oran jiray shacab yawman arada al-hayaa hadii shacab doono maalin nolosha fala budda la yastajib al-qadar wixii dhici lahaa bay soo dedejiyaan baa gabaygiisa kamid ahaa صح marka in shacab hadii uu gilgisho oo uu xornimo u diyaar garoobo oo uu doono in horta qofku wixii uu raadiyo inuu helayo bay ku tusaysaa tan labaadna waxay ku tusaysaa dhalinyarada doorka ay ku leeyihiin mujtamaca waxa ka hadlay dhalinyarada SYL yani tii ay ku kaceen iyo wixii uu sameeyey iyo tallaabadii ay dhalinyaradaasi qaadeen waxa markhaanti ay kaaga noqonaysaa doorka dhalinyaradu ay ku leedahay mujtamaca haddii aadiisa maxdana gabaygii xaaji aadan qafalooc wuxuu nin boqol iyo xoogaa sano ku dhintay oo dhalinyarada Soomaaliyeed la hadlayay gabay kula hadlayay dhalinyarada shucuubta caalamka waa waxa xoreeyay diinta waxa u soo dagaalamay waa dhalinyaro waxa halgama ee militariga galaa waa dhalinyaro waxa difaaca galaa waa dhalinyaro ninka aan arag Soomaaliya oo nabad ah ama ku dhalan waxaan leeyahay ka qayb qaado oo qabyaalada iyo eexda iyo kala firirsanaanta iyo waxyaalahaas oo dhan ka bax waxaad jeclaataa wadankaaga haddii aad wadankaaga jeclaato qof walba oo Soomaaliyeed waad jeclaanaysaa dhulkaaga haddaad jeclaato waad gaaraysaa nabadda iyo xasiloonida iyo wanaagga laakiin haddii ay kugu jirto beel iyo fikir aragti kaleeto oo wiil yar adu ah oo Yurub ku dhashay ama ku koray laga dhaadhiciyo reer hebel baato wax lagu akhriyo wixii wadankii lagu soo gubay waad ku ololaysaa waanad ku gubanaysaa marka dhalinyaradu waxaan leeyahay waxa ka bartaan shucuubta caalamku wadamo badan baa maanta dhalinyaro ay xukumaan oo madax ka yihiin oo Finland ka mid tahay mustaqbalna ma tiidina maanta tihiin wadankii maanta mustaqbalka berri wax la yiraahdo ma jiro qof walba maanta inaa hoggaanka dalkaaga qaban karto ka shaqayn karto wax ka qaban karto qurbahana aad kala noqon karto sida ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre intuu qurbe u yimi muddo joogay wax ku bartay aqoon kala yimi khibrad kala yimi oo markaa damaciisu siiyay inuu wadankiisa Soomaaliya u aado maantana uu ra'iisul wasaare ka yahay taas oo kaleeto ayaan leenahay dhalinyaradu waa inay hankooda iyo hiligooda waayo Khayre maalintii burburku dhacay wuxuu nin dhalinyaro ah oo dadkii qaxay buu ahaa laakiin inta waxaad moodaa inuu siday hamigaas iyo inuu wadankiisa wax u qaban karo iyo inuu hoggaan leeyahay iyo inuu leadership noqon karo marka dhalinyaradu waxaan leeyahay dalka idinkaa leh ismidaysta oo u diyaar garooba taasi waa mid waa gartay gabaygii xaaji aadan afqalooc haddii aad tirin kartid oo inay ka xasutid gabayga xaaji aadan afqalooc dhalinyaradu la hadlaya markaa waa tusaale aad u fiican loo dhadhansado si fiican waayo wuxuu ka hadlayaa geeduhu markay waaweynaadaan jabaan xaabadu inay maaragtay la gurto oo geed kale ka soo baxo markaasaa la anfacsadaa markaa wuxuu leeyahay hadduu geed engego xaabadaa laga idlaystaaye mid yaroo iniintiisa ah baa soo awaalbaxay isaga anfaaciga harkiyo ooda kaafiya ee dadkana odaygu goortuu ka baxo iyo islaantiisa ubadkooda harabaa tabco aayatiin hele markii aadam iyo xaawo kaynta la abuuray sidaasay arwaaxda iyo dhirtuba isu israayeene ummaddan shabaabkeedu ama dhallinyaradeedu hanan wow ayaan xumae inamiyo hablaba waxaad tihiin aarankii kacae
itaal gabe dadkiinnii hore waydin aragtaaye idinka ammaanada xilkii eegan qaabilaye iskaa waxu qabsada noloshu waa udubdhexaadkii marka ilaa waagii aadan iyo xaawo dhirtuna way gaboobaysay kuwa yaryar baa soo baxayey dadkuna way gaboobayoon dhallinyaradaa soo baxaysay intaa iyo gabayga xaaji aadan afqallooc wiilka dhallinyara iyo gabadh dhallinyaro oo aan wax ku qaadan inamiyo hablaba waxa diin aarankii kacaye itaal gabe dadkiinnii hore waydin aragtaaye idinka ammaanada xilkii eegan qaabilaye iskaa wax u qabsada noloshu waa udubdhexaadkii ereyga iskaa wax u qabso waa naftaada wax u qabso marka waxaan filayaa dhallinyarada soomaaliyeed intaas qofka ay gaari weydo ama diirin weydo ama kuluulin weydo ee qabyaaladda iyo eexda iyo qurunka laakiin waxaan ubaa dhallinyarada soomaaliyeed aad bay u dadaalayaan door fiican bay leeyihiin khaas ahaan dhallinyarada norway waxaan ogaa iyagoo sameeyo urura sameeyey waxaana halkan hadda munaasabadda uga dirayaa fariin dhallinyarada firfircoon ee soomaaliyeed ee samaysay ururka dhallinyarada guddoomiyahooda magaciisa iisoo qabo liibaan miyaa la yidhahdaa ma xusuusto magaciisa nin dhallinyaraha urur bay samaysteen gabar la yidhahdo ayaan cabdulle iyaduna oo aad u actifa oo magaalada bergen joogta oo dhallinyaradu ay dhallinyaro badan oo isku xiran leeyihiin oslona dhallinyaro badan oo dadaalaysa oo gabdho dhallinyaro ah oo aad aragtay dhakhaatiira oo ay ka mid tahay gabadha la yidhaahdo doctor bashiir waxaa la yidhahdaa ina bashiir gabadha la yidhahdo dictooradda ah ayaan waxaa ka mid ah faa'isa gabadha la yidhaahdo dhallinyarada samaysay corona tiimka dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo dadaalaysa baa jirta iyo walaashada farxiyaba iyo farxiyo inta wada ururka hob dhallinyarada tababaraya wax u qabanaya ifraaxiyo iyo dhallinyaro badan oo waxa weeye dee dadku soomaaliyeed oo badan oo wax badan qabanaya baa jira raamayama baa jirta oo aad baraarujinta iyo wacyigelinta ugu jirta dadku dee wixii 40 iyo ka hooseyaba oo iska dhallinyaro adigaa ka mid a midnimo oo dadka ordaya oo haliyada ordaya Saciid Noorson baa ka mid ah wariyeen xasan siin rasto waa dhallinyaro cuslaatay ugu dar marka in alla intii iyo raadiyo maqan ku dar raadiyo maqan odayaal cuslaaday waa la yiraahdaa mahad waa ragayga marka iyo macalin jamaal marka bulshadeen waxaynu u baahnay inaynu garbaha isqabsano isficlaano horey u soconno inaynu iska dayno wixii dhaliil ah oo aan macna keenayn laakiin dhaliisha wax dhalaysa aan fulino dhallinyarada soomaaliyeedna waxaan leeyahay way muuqataa natiijadii oo waddanka iyaga maanta qabsan doona jaamacadii bay ka baxeen waxay ka baxeen dugsiyo sare waxay haystaan faad bareefkii waxay haystaan mihnadihii marka dhallinyarada soomaaliyeed waddankan mustaqbal fiican laakiin waddankiina in fasaxyada la tago hadday arrintu degto oo dalxiis loogu tago oo dhaqaale dalxiiskaasi geliyo insha allahu tacaalana haddii mustaqbalka fiican uu soo hagaago anigayga naftigayga ayaa samayn doona barnaamijyo dhallinyarada waddankii lagu geynayo ay dalxiis ku tageen intay noorgay ka baxaan meelaha ammaanka ku jiro soomaaliyeed inagoon u egeyn deegaan iyo qabiil laakiin meeshii nabad ah batalaalaanu geynaynaa waxaanu geynaynaa ceebta bullaxaar waxaan geynaynaa garaacad waxaanu geynaynaa qawi iyo ceelaayo waxaanu geynaynaa cadcadiyo durduri waxaanu geynaynaa marka waxaanu geynaynaa xeebaha liido iyo jaziira waxaanu geynaynaa dee dhulkaa quruxda badan ee soomaaliyeed inay soo arkaan markay soo arkaan bay jeclaan doonaan dhulkii in lagu xirmo weeyo waalidiintuna dhallinyarada dadkii ku xirto iyo dalkoodii insha allah daltabiyadu waa jirtaa lafteeda waxaa waay intaas waa ku jira haddii aan noolahay qayb baan ka ahay aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa waqti kasta oo aan ku baahanaba idaacadda voice of Oslo waqti asiisid abaal baan kaaga haynaa waxaan ku leenahay labada munaasabadood aan ka hadalnaba waa ku hambalyanayaa adiga iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan macsanid ummadda soomaaliyeed aniguna iyo idinkana aad baan idin salaamaya dhammaantiin iyo ummadda soomaaliyeedna waxaan labada munaasaboodba waa ugu hambalyaynaya waxaan leeyahay 15 milyan hambalyo iyo guryo ayaan leeyahay tanna waxaan leeyahay garaatulle reer meedraagan dhammaanteen waxa weeye inaynu nahay ummad ku faraxsan dalka ay joogaan oo ay deegaanka ku yihiin iyo koodii hooyaba intaas ayaan anigu idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum assalam waraxmatullahi wabarakaatu waxaa iga cafiif ah in barnaamijka qaybtii hore markii aan ku ambilownay in qaybtan dambe uu ka go-ay laakiin qaybtan dambe waxaa kala soconaysaan isla facebook haddii aan ledmo waa Cabdi Axmedna waa idin leh habeen wanaagsan aad baan ku salaamayaa maxamed bashir aad baan ku salaamay insha Allah assalaamu calaykum waa tahay kaasi wuxuu ahaa maxamed bashiir oo khad taraafig ugu warramay isagoo jooga magaalada Oslo aad baan salaam barnaamij inta kusoo gabagabeynayna waa Cabdi Axmedna waa idin leh
habeen wanaagsan garaatuure mee taagan 6 May iyo 15 May habeen wanaagsan